السلام عليكم maanta waxaan la wadaagi doonaa qiso argagax leh qisadani waxay ku wareegi doontaa wadamada kala ah Chile, Japan iyo waliba Faransa waxaana qisada nolosheeda ku waayi doonta gabadh yar oo qurux badan baaritaanadii lagu sameeyay kiiskeeduna waxay soo bandhigeen sheeko aan la rumaysan karin taasoo u eg riyooyinka aynu ku riyoonno habeenkii Narumi Kurosaki waxay ahayd gabadh yar oo isku darsatay aqli badnaan iyo qurux waxayna caruurnimadeedii ku soo qaadatay magaalada Tokyo ee dalka Japan waxay jecleed inay wax ka barato dalka dibadiisa laakiin waxa hamigeeda ka hor taagnaa duruufaha dhaqaale ee ay ku jirtay si kastaba ha ahaatee Narumi waxay heshay scholarship waxaana halka kaga hadhay warwarkii ay ka qabtay dhaqaalihii ay ku aadi lahayd dalka dibadiisa ugu dambeynna waxay iska xaadirsay jaamacaddii ay ka heshay scholarship-ka taasoo ku taalay magaalada Besançon ee bariga dalka Faransiiska muddo yar kadib Narumi waxay ixtiraam ka heshay macallimiinteedii oo ku tilmaamay inay ahayd gabadh firfircoon oo dadaal badan waxayna dejisatay hadafyo ay kor ugu qaadayso waxbarashadeeda waxayna badanaa jecleed inay caawiso dadka kale dhinaca moralkeeda marka la eegana waxay ahayd gabadh faraxsan kaftanley ah oo dhoollacadeyn badan marka laga yimaado inay jecleed caawinta dadka kale Narumi waxay jecleed sidoo kale qoobka ciyaarka waxayna cashara ka qaadan jirtay dugsi qoobka ciyaar oo u dhawaa jaamacaddeeda waxayna aad ugu faraxsaneed joogitaankeeda Faransiiska mustaqbalkeeduna wuxuu u muuqday mid ifaya December sanadkii 2016 habeenka qaybtiisii dambe oo ku beegneed abaara 3:20 daqiiqo qaylo dheer oo argagax leh ayaa ka soo baxday qolka Narumi dariska oo maqlay qaylada naxdinta leh ayaan haba yaraatay wax wicitaan u dirin booliska waxaana qaylada ku xigay jug culus iyo dhawaaqyo qariib ah intaa wixii ka dambeeyay Narumi waa la waayay meel ay Jani cidhib dhigtay dhowr maalmood kadib waxa bilaabmay baaritaankeedii markii ay maamulka jaamacaddu ay sheegeen inaan mid ka mid ah ardaydoodii firfircoon aanay soo xaadirin fasaladeedii dambi baarayaashuna iyagoo kaashanaya CCTV-ga iyo markhaatiyo kale waxay ogaadeen markii u dambeysay ee la arko inay ahayd 4 December oo ay ka qayb gashay xaflad qoobka ciyaar markii ay xafladda ka baxdeen ay casho la qaadatay wiil dhalinyaro ah waxay kale ogaadeen ninka ay la qaadatay cashada inaanu ahayn Japanese sidoo kale waxa fara laga helay goobtii ay ka deganeed jaamacadda intaa kadib waxa la helay muuqaal kale oo ka sii baxaya goobtii jaamacadda ay ka deganeed kaligii dhabarkana ku sita boorso weyn haddaba arrinka shakiga sii abuuray ayaa ah inaanu ninkani ka bixin albaabada caadiga ah ee uu ka baxay albaabadii loogu talagalay emergency-ga booliskuna hadda waxay heleen qof ay ku tuhmaan waayitaankii Narumi waxaana isla waqtiga ogaadeen inuu ninkani ka baxsaday dalka wax yar kadib markii la waayay Narumi intaa kadib booliska Faransiiska ayaa la xiriiray hay'adda booliska adduunka ee Interpol waxayna u sheegeen ninkan in lagu tuhmay afduub waxayna geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen sidii ay u heli lahaayeen Narumi iyagoo isticmaalaya dhammaan tiknoolajiyadii ay haysteen sidoo kale waxay isticmaaleen eeyada waxruusa bal inay helaan wax raada 15 bishii December gabadha yar oo la jarjaray ayaa laga helay jidhkeeda meel u dhow keynta magaalada markii DNA laga qaadayna waxa la ogaaday inaanay gabadhani ahayn Narumi sidoo kale dhiig qalalan ayaa laga helay banaanka meeshii ay ka deganeed jaamacadda laakiin nasiib darro mar kale muu noqon dhiiggeedii dhinaca kale dad ayaa booliska u sheegay inay Narumi ku arkeen meel baara 19 December oo ku beegneed qiyaastii markii la waayay 2 toddobaad kadib waxay sheegeen inay qaadanaysay xaddi badan oo kiniina baaritaan la sameeyayna boolisku waxay ogaadeen inaanay gabadhaasi ahayn Narumi 28 December waxay boolisku kiiskan u aqoonsadeen kiis dil ah inkastoo aanay ahayn caddayn dhaba sida dhiig ama jidhkii gabadha haddana waxay dareemeen inay wax qarsoon yihiin isla maalinkii xigayna boolisku waxay daaha ka qaadeen ninkii looga shakisanaa waayitaanka Narumi ee la socday habeenkii u dambeeyay ee la waayay kaasoo magaciisu yahay Nicolas Saavedra Contreras waa kaaliye jaamacadeed oo ka dhashay qoys hantiilayaal oo ka soo jeeda dalka Chile waxayna Narumi isku barteen isagoo dalka Japan u jooga inuu barto luqadda Japaaniiska sanad kadibna waxay bilaabeen shukaansi xitaa wuxuu waqtiga u kaxaystay wadankiisa Chile si uu soo baro qoyskiisa markii ay Narumi scholarship-ka ka heshay Faransiiska waxay soo afjartay xiriirkoodii maadaama oo ay ka cabsan jirtay ninkan waxayna sheegeen qaar ka mid ah qaraabadii ka agdhawaa inuu marmarka qaarkood awood u isticmaali jiray si uu uga dhex saaro asxaabteeda markii ay kala tageenna Nicolas uu ka xanaaqay arrinkan Narumina waxay bilowday xiriir kale wayna ku faraxsaneed saaxiibkeedii cusba ayaa mar booliska u sheegay inuu Nicolas daba dhigtay oo uu xitaa damcay inuu jabsado Facebook-giisa baaritaan dheer kadib boolisku waxay heleen muuqaal uu Nicolas ku duubay luqadda English kaasoo u muuqday inuu si dadban ugu hanjabayo Narumi Hi, whoever is watching How Narumi. This video is to set a statement.
Recently, Narumi did some bad things, which are costing her to follow some conditions in order to keep this relationship. Even though that, I believe we should live in another way. We should live without those conditions, but trusting each other and being honest and not hiding. I think that's the much more healthy way to live. So the statement said that the conditions are applicable. intaa kadib Nicholas wuxuu u duulay dalka Faransiiska wuxuuna gaari u kireystay magaalada Besançon oo ay ku nooleed Narumi intii uu jidka ku sii jirayna wuxuu iibsaday taraq iyo batrool waayitaankeedii kadibna wuxuu soo celiyay baabuurkii uu kireystay baabuurkuna wuxuu ahaa mid wasakh badan gaar ahaan dhinaca darawalka GPS-kii baabuurka markii la eegana wuxuu sheegay saacadii hore ee 5tii December inuu ku jiray meel fog oo kayn ah waxayna boolisku ka shakiyeen inay tahay meeshii uu ku qariyay jidhka Narumi haddaba arrinka la yaab kale ayaa ah markii la waayay Narumi qoyskeedii iyo asxaabteedii waxay fariimo ka helayeen taleefankeedii gacanta fariimahanina waxay ku qornaayeen luqadda Jabaaniiska mid ka mid ah fariimahaasna waxa lagu sheegay in Narumi ay soo xalinayso arrimo ku saabsan baasaboorkeeda kuna qasbanaatay inay aado magaalada Lyon intaa kadibna kaadhkeedii bangiga ayaa lagu iibsaday tigidhka tareenka laakiin booliska oo markii dambe weydiiyay qof kasta oo saarnaa tareenka inuu arkay gabadhan waxay dadku u sheegeen inuu booskeedu mannaa ilaa intii safarku dhammaanayay halkaa markay arrintu marayso dambibaadhayaashii waxay aad uga shakiyeen Nicholas inuu soo dirayay isagu fariimahan intaa kadib 7 December wuxuu u safray Nicholas dalka Switzerland muddo kadibna wuxuu ka sii aaday magaalada Barcelona wuxuuna halkaa kula kulmay adeerkii oo ah dhakhtar waxaana la ogaaday in wada hadal dheer kala yeeshay wax ku saabsan neefqabatinka taasoo keentay inay boolisku ka shakiyaan inuu ku dilay Narumi ciijin wuxuu kaloo adeerkii u sheegay inaanu Narumi arkin tan iyo markii ay ku kala tageen Japan sidoo kale fariimihii laga soo dirayay taleefanka Narumi waxay joogsadeen isla maalintii uu Nicholas ku noqday dalka Chile 18 Janaayo 2017 warbaahinta ayaa ogaatay inuu Nicholas ku dhuumanayo mid ka mid ah guryaha qaraabadiisa ee ku yaala dalka Chile mas'uuliyiintii Faransiiskuna waxay urursadeen cadeymahoodii waxayna codsi u dhiibeen dawladda Chile si ay ugu soo dhiibto ninka la tuhunsan yahay laakiin xeer ilaaliyihii dalka Chile ayaa ka hor istaagay arrintan isagoo ku andacoonaya inaanu Faransiisku haysan cadeymo ku filan oo muujinaya ku lug lahaanshaha Nicholas ee waayitaanka Narumi sababta u weyn ay Chile u diiday soo dhiibitaankiisana waxay ahayd maqnaanshaha meydkii Narumi dhanka kale warbaahintii dalka Chile ayaa bilowday falaqeynta arrinkan halka qareenkii Nicholasna uu qabanayay doodo uu ku difaacay isaga waxayna bulshadu isweydiinayeen lacag intee leegay qoyskani ku bixiyeen si ay u difaacaan inankooda bishii Febraayo 2017 Nicholas wuxuu maxkamadda ka hor sheegay inaanu wax dambi ah lahayn halka qareenkiisuna uu ku andacoonayo inaan cadeymo sax ah la hor keenin maxkamadda waxayna sheegeen qayladii ka soo baxaysay qolka Narumi inay ahayd farxad ka dhalatay galma ay sameynayeen isaga iyo Narumi taasoo meesha ka saaraysa markhaatiyaashii sheegay inay qayladu ahayd qayle argagax leh qareenkiisii sidoo kale wuxuu isku dayay inuu xaakimka ku qanciyo inuu qof kale ku lug leeyahay kiiskan waxayna isku dayeen inay kiiska ku eedeeyaan saaxiibkii dambe ee Narumi waxay sidoo kale u sheegeen warbaahinta dalka Chile in saaxiibkeed isagoo isticmaalaya VPN iskana dhigaya inuu joogo waddanka Chile uu fariimahan ka dirayay taleefankeeda ugu dambeyn bishii Abriil 2020 maxkamadda sare ee dalka Chile ayaa ogolaatay Nicholas in lagu wareejiyo dalka Faransiiska qoyskiisuna waxay u qabteen qareeno aad u tababaran si ay u difaacaan qareenadana waxa hogaaminayay qareenkii u doodayay Nicolas Sarkozy oo ah madaxweynihii hore ee Faransiiska ee lagu eedeeyay musuqmaasuqa waxaana ilaa hadda kiiskan gacantan ku haya dalka Faransiiska dhanka kale qoyska Narumi waxay aaminsan yihiin Nicholas inuu yahay dambiile markay arkeen qalabsanaantiisa iyo habdhaqankiisa waxayna ku hanweyn yihiin inay maalmaha ka mid ah helaan cadaalad haddaba daawadaha qiimaha badan oo sidee buu kula muuqdaa kiiskani sama u malaynaysaa inuu ninkan yahay dilaaga dhabta ah mise waxaad u malaynaysaa inuu jiro dilaag kale oo qarsoon haddii aad muuqaalka ka heshay fadlan like saar waanad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka